Dahabshiil, your trusted financial partner. This is clean. Yes, man. Yes. tartanka koobka kubadda cagta oo loogu magac daray Rice Dahabshiil Youth Cup 2022 ay ka soo qayb galeen 12 kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada London ayaa lagu qabtay New River Stadium oo ku yaala xaafadda Wood Green ee magaalada London. Tartankan waxaa soo qaban qaabiyay Rice Project oo ah urur u istaagay wacyigelinta dhalinta Soomaalida UK kana wacyigeliya dhalinta inay u weecdaan waddo qaldan isla markaana ka shaqeeya caawinta qoysaska dhanka guryaha iyo sidii dhalinta ku dhaqan London ay shaqo wanaagsan u heli lahaayeen. Isla markaana tartankan waxaa maalgelisay sharikadda Dahabshiil iyadoo looga bartay dhiirigelinta dhalinyarada iyo garab istaagga bulshada. Tartankan ayaa ciyaarta kama dambaysta waxaa isku soo haray kooxaha ku kala ciyaaraya magacyada Multipolaris iyo Woodline oo ka kala socday waqooyiga iyo galbeedka magaalada London iyadoo natiijada 2-0 ay guusha ku raacday kooxda Woodline oo ka socday galbeedka magaalada London. munaasabada gabagabada tartanka waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada London iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada. waxaana la guddoonsiiyey kaab iyo bilado kooxahii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad soo galay, halka sidoo kale ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa la guddoonsiiyey bilad sharaf. And we're here today at the 2022 Rise Dahabshiil Youth Cup, which is a fantastic event for the community, for us to get together. This year's event has been sponsored kindly by Dahabshiil, the largest money transfer company in East Africa, supporting the Somali community and also the wider community. It's been an excellent tournament, as I'm sure many of you have experienced today. And we're here at the medal ceremony to present the individual but also the team awards to those players who've excelled today and have really done really well. I'm here amongst the number of people who've helped us organize this event, people from the wider community but also the Somali community. dhammaan intiina ciyaartooyga macallimiintooda madaxdooda iyo gaar ahaan odayaasha ka soo qayb galay iyo si gaara Dahabshiil oo maalgeliyey qabanqaabiyey sanadkan tournamentkan aad u qiimo leh ee dhalinyarada faraha badan ay tartanka ka soo qayb galeen. tartankan Dahabshiil uu sanadkan maalgeliyey uguma horeyn the last 10 years waan xasuustaa oo halkan kuba ku bixinayno Cabdirashiid baaba joogay beriga halkan maareeyo ka ahaa every year dhaqaalaha lagu bixiyo Somali Week iyo tartamada oo dhan Dahabshiil baa bixin jiray. sanadkan aad iyo aad baan ugu ammaanay Dahabshiil ba inay qabanqaabiyaan dhalinyarada magac fiican iyo tartan fiican ayaa ka dhacay. It's really good to welcome those who are not from Haringey to New River Sports Centre, and really excited to see all the teams competing over a long afternoon. And obviously our thanks to the main sponsor, Dahabshiil, who's very generous, well known. Anyone from the Somali community would know how much support they give to grassroots initiatives, to works, to projects for over 20 years now. So thank you to them, but also thank you to the local partner who's actually in my ward. And I'm really proud that they're actually hosting this as well, the Rise Project. A special thank you to Awala and to Ahmed. So well done anyway, and as we say, thanks for the sponsor, that's really appreciated. So I think this is your first time at this location, this place to play? First time here? No? For some time. For some of them, yeah, okay. But first time you've had this event for this year, the first event of this kind, yeah? That's right. Okay, well let's make sure we keep it going and it happens every year from now on. السلام عليكم ورحمة الله. waxaan dhammaanteen ba aan idin anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta inaan idin idhaahdo waxaan idinku hambaliyeynayaa kulankan wanaagsan aynu qabanay dhalinyaradeenii oo aynu maanta ay intani ka soo shaqaysay iyo Dahabshiil oo maalgeliyey ay ka soo shaqeeyeen sida ay isu dhexgeli lahaayeen isu baran lahaayeen wax xun aynu ugala carari lahayn. runtii waxaynu doonaynaa inaan joogtayno waanu ku faraxsanahay haddaanu waalidiinta nahay waxaanu leenahay noo joogteey arrimahan oo kale si ay dhalinyarada iyadu uga fogaato waxyaalaha xunxun iyo dhibaatooyinka. aad iyo aad baana u mahadsantihiin baan idin leeyahay dhammaantiinba. aad iyo aad baan horta marka hore u salaamaya dhammaan waalidiinta taageerayaasha dadka annagana taageera ee Rise Project taageera. On behalf of Rise, I would like to thank all the volunteers,
the management committee, and everybody that supported us to deliver this wonderful tournament. And also I would like to thank the councillors for coming today. I would like to thank every other person that has turned up today, and I wish you all the best luck, and make sure you guys turn up to future events. Thank you. Well done. Respect. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done, guys. Team, Well done. team. Well done. Guys, you don't even Well look excited done, and you well won the whole done. tournament. You won the whole tournament, you don't even look excited. Who's the captain of the Woodside team? Yeah. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed